waxaan rabnaa Itoobiyaanka in la kararo waxa weeye in la kararo Itoobiyaanka kii tuugsanaya tuugsi wuu waayay wiilkii yarka baalashlaha baalash wuu waayay waxa weeye xaxaabkiiba guranayaan edab daray wadanka la taagan yihiin wadankooda mustawaqan ku galaa wadanka yana mustawaqan baa ay ku soo galaan anagu ma doonayno Oromo iyo ma doonayno waxaan aan garanay afkooda aan garanay hambalyo iyo bogaadin shacabkii Puntland oo xilligan ku baraarugay dhagarta xabashida bilaa sharciga ah ee ku soo qulqulaya gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland tiradii ugu badnayd ayaa la raafayaa isbuucan magaalooyinka waaweyn ee Gaalkacyo Garowe iyo Boosaaso waa kana gudoomiyaha gobolka Nugaal oo shaaciyay markaasi tallaabada ku haboon ee laga qaadayo xabashida codkiisa ayaan idin la wadaagi doonaa kaligay hawshan ma qaban waxa ay la qabtay idinka oo muuqaalada digniinaha ah ee aan dirayay ila fogeynayay haatanna waxaan rabaa inaad fariintan iga sii fogeysaan oo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kale aan ku baraarugsanayn aad gaarsiisaan gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Gado Soomaaliya Puntland iyo nimankaas maamulka Hargeysa Koonfur Galbeed iyo Gado bas ay ka joogaan meel kale ma ay joogaan qoliyahaas gudoomiyaha gobolka Nugaal fariintan ayuu diray maalin koor dajin lahaa waa la aruurinayaa waa lagu xareynayaa raritaankooda iyo quudintoodana inagu shaqo kuma leeyin hay'adaha qaabilaya Itoobiya ku culays badan baynu ku hayaan xag amni xag nadaafadeed xag dhaqan ilaa masaajidada ka dacwoonaya Itoobiya marka waa la isku wada raacsan yahay wadankeena inaanu dib uga celino inuu deegaanadooda ku celino taas waa guul weyn hadaynu isku wada raacsanahay hawshii sanadko aad iyo aad muuqaalkan dhamaantiin la gareeyo si shargareeyo aad baa mahadsantahay YouTube kana ku soo biira nimba laga hayaa inuu yiri xabashidu waxay soo dageen dagaladeedii dekadiyo dhulkii aan lahaa diiqa loo bixiye maraakiib dagaal iyo hubay ila dul joogaana dawarsadaha kaad moodaysaan waa dagaalyahan waa taliyadaas oo ragga deyrka dhigateene maalintuu dagaal ina qabsado ama la soo duulo dirayskoodu meel buu u yaal iyo dabkoodii markaasi dekanooyin loo soo diray bay sii dabirayaan aad iyo aad abwaanageeyu ahaa waa xaqiiqo weeye saraakiil sirdoon ay weeye qaybtood qolyahan masaakiinta iska dhigayo anigu maanta markaan ay qof Soomaaliyeed waxa kamid ahaa dadka markii aan abaabulaynay ama kicinaynay war Itoobiya ma gali kara aniga wali dhulka ugu badan ku leh aan xoogayga haysato ma gali karaan bilaa mustawa qalaano Soomaali ah oo ka tagay Gaalkacyo ma gali karo dangalaasa la iga daaraya buud ba afka la iga dhacaya dawladda Kenya ma soo gali karaa dhulkeeda wali dhul badan aan ku leh maya adduunyadu saasi u macaamisha xajka oo baytullaahi al-xaraam ah ma tagi kartid fiisa la'aan iyo sharci la'aan waa xajkii way waa meelihii ugu xurmada badnaa way dunida ma gali karo fiisa la'aan haye wadan la isaga soo qulqulayo haye waliba dad biyahaagii doonaya ay ku soo qulqulayaan haye taas weeye waxa aan diidanahay ee annagu xuquuqda insaanka iyo islaamtinimada kama soo horjeedna sharci ku soo gal sharci ku joog wadanka laakiin waa iska soo galaya meel la kama shaqeysto walaalo adduunka waa kuwana fariimaha ay direen marka shacabkii Puntland oo maanta ku baraarugay xilli waliba xasaasi ah ku baraarugay madaxweynaha Puntland Siciid Danina fariin u diray xilli gudoomiyaha gobolka Nugaal oo shaqadan leh uu shaaciyay in magaalooyinka Puntland oo dhan laga raafi doono deegaanadoodina dib loogu celin doono bal ark ayda xoogka ku xoogsan jirtay waa la wareegeen qof walba oo dhisme ka shaqeyn jiray oo qaadan jiray $10 ama $15 waxay oranayaan $5 baan ku shaqeynaynaa fariinta dawladdu u dirayna waxa weeye in Itoobiyaanka sida ugu dhaqsiyaa badan ooga saaraan Soomaalidii baa baahan Itoobiyaanki waa xoogkoodii magaalada ku la wareegayso oo masaakiintii $5 $15 dhismaha ku shaqeynaysa waxay oranayaan $5 baa inagu dhiseena marka mudan madaxweyne Itoobiyaanka in laga saaro u baahanahay juudaanayaasha ku badan caafimaadkooda ma wanaagsana meel walba waa ku xaarayaan meel walba ku kaajayaan Itoobiyaanka in laga saaro codsanayna dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa aramada Itoobiyaanka in la ka kaxeeyo
khadiyaan billahi baanu ka taaganahay qadaartay xadayaan ilmahay dafayaan dadka xoolihiisa ba xataa dhameysteen oo cunayaan iyagoo cuurin biyo cuurin cunayaan marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in la ka kaxeeyo la ka ambiyo wadankooda nala geeyo caasha waxay noogu soo ordayaan baan la yaabanahay anagu dad baa wada Soomaali kala wada oo soo gooshisiinaysa oo soo kaxaynaysa Soomaali ka wada oo lacag ku qaato soo kaxaysanaysa waa saawalanayaan inahan waxay noogu hayn waayeen annaga ma nala tartamayaan hadda ragoodii ma jooga way baxeen ragoodii way joogan maatadoodii baa jooga dumarkoodii baa xaruuroodii baa jooga raggan arki jiray hadda ma joogan waxaan isla siyaasad bay ku maqan yihiin baan isdiri ma garata saa weeye walaal waxaan rabnaa Itoobiyaanka in la ka raro waxa weeye in la ka raro Itoobiyaanka kii tuugsanaya tuugsi wuu waayay wiilka yarka baalash wuu waayay waxa weeye xaxaabkiiba guranayaan edab daray wadanka la taagan yihiin wadankooda mustawaqan ku galaa wadanka yana mustawaqa la'aan baa ay ku soo galaan waxa keena gawaarilayda waxaan halkaa ka sheegayaa oo codsi ka bixinaya gawaaridaydu inaysan soo qaadin kuwa wadanka joogana nala ka raro oo loo sameeyo ciidamo dhalinyaro oo wareegta oo aysan wadankeena ku soo galin mar dambe haddana in madaxweynaha Puntland Abdullaahi Siciid Dani waxaan ka codsanaynaa inuu si tartiib ah nooga raro iyo maamulka magaaladu inay naga raraan dadkan baan ka codsanaynaa waxa weeye kuwa gawaarida oo lacagta ka soo qaadanaya oo nagu soo daadinayaan inaysan noo soo qaadin baan rabnaa qofna lukagama imaan karo jigjiga iyo ka kor aniguba kuma tagi karo madaxweyne waxaan nahnay shacabka Puntland joogta ma fahamtay mudane waxaan ka rabnaa inaad naga saartid oromada shalay guri kiraaba raasaday marka raasaday waxa leeyahay yiri tamiin qeeso anoo Puntland u dhashtay oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxa leeyahay yiri kira keeso waxa keesataa damiin shalay marka la imaan waxa leeyahay yiri guriga waa la dagay Itoobiyaan baa dagay mudan mana qabataa inaan guriyihina shalna la dhahnay damiin keeso Itoobiyaankan hoos laga kireesto mudan ma qabato mudan madaxweyne ma rabno Itoobiya guriyaha shaqaaleyntu waxay ku joogaa $30 cudur been ugu hayaan mudan madaxweyne rawaan rafaadiyeen mudan madaxweyne ma rabno aniga Puntland hadaan maanta shacabka Puntland nahnay maanta ugu dambeysay codkeena hadaa wax ka soo jawaabay mudan madaxweyne ada arki doona shacabka horaan waan ku duuleynaa aad baan u bogaadinayaa gobonnimo ayaan leeyahay sidaas ayaa loo baahan yahay annaga qadiyadaan aaminsanahay oo jiritaan baa jirta dadkan madaxdan Soomaaliyeed ee maanta siyaasadaha shacabkooda raba inay u duleeyaan oo kale aniga ma yihi aniga xabashada waxaan ka aaminsanahay cadow ma taqaanay cadowtullaahi ah oo Soomaalida ama ha dhawaata ama ha fogaata maalin uu doonayo inay dajiyaan oo ay liqaan waan ka aaminsanahay xataa wadamada dariska sida Kenya cadaawada ay qabaan xabashadu ma ay qabto sababtaasina waa mid aan uga soo jeedo Itoobiyaanka ama xabashada laakiinse qolyahan boorka iska qorinaya ee fila Soomaaliya jooga wuxuu xabasho nacayb ma ahan iyaga ba la shaqeynaya qaarkood xasan iyo kooxdiisu tallaabooyin waaweyn bay qaadi lahaayeen haddii ay midnimo iyo jiritaan Soomaaliyeed ka shaqeynayaan maamuladii mataqaanay gooni goosadku xabashada u shaqeynaya ee badaha saxiixay ay lugaha u qabanayeen bay qalinka ku duugi lahaayeen waliba gobolkan awdal xataa haddii aysan maamul goboleed u aqoonsanayn waxa la rabay iyagoo ilaalinaya midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya inay u aqoonsadaan sida gobolka Banaadir gobol hoostaga dawladda federaalka gudoomiyihiisana waa Xasan Sheekh Maxamuud soo magacaabo taageerana ay siiyaan intaas ku filnay wixii qalbada jaban waxa dagaal ay kula jiraan ma jirto xabashada walow iyaga nooga dhow maanta aad iyo aad siyaasadaha ay isticmaalayaan waa siyaasadaha shacabka Soomaaliyeed oromada iyo xabashada oramka Nabi Axmed ay ugu lugu qabanayaan yaxooyaan been leedin sheegay Xasan iyo Abi isma dagaalsana waayo Xasan wuxuu la socdaa oo uu walaal wanaagsan u yaqaanaa ninkii imaaraadka ahaa ee Abi Axmed ku yiri biyaha Soomaaliya qabso biyaha Soomaaliya ninka gadaal ka taagan imaaraadka ee soo riixaya buuba walaal u yaqaanay lacag ka guranaya marka ninkaas maxabasho la dagaalamaya waa maya isbuuciyo kadib arkaygo iswata hadii aan arkin waxba ay weydiinina muuqaalkan wuxuu noqon doonaa qiraal markhaati buu noqon doonaa Xasan iyo Abi Axmed oo isdhunkanaya hadii aan maalmaha soo aadan arkin waxba ay weydiinina shacabka Puntland iyo guud ahaan shacalada magaalooyinkaasi aan xusay sida gobolka Gaday iyo Koonfur Galbeed waa in la baraarugo fadhiga laga kaco
aad baan idin salaamaya meel kastoo aad joogtaan